رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. waxaan ku dhex jirnay weli adkaartii hurdada. adkaaru noom ayaan gelaynaa. marka la jiifanaya jamacu wuu kulminayaa qofka kafayhi labadiisa gacmoodu isku keenaa markuu ducaysanayo oo kaleu ka dhiga. uma yanfusu fiihima waa afuufa fayaqra'u fiihima wuxuu ku dhex akhrinayaa bismi illaahi araxmaani araxiim qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad. wuxuu kaloo ku akhrinayaa bismi illaahi araxmaani araxiim qul acuudu birabbi alfalaqi min shari maa khalaqa wamin shari gaasiqin إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وعكلوك آخرنا يا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لبدي كعمود أي سدح لا صورة أفوفا ثم يمسح بهما وحمرنا يا ما استطاع من جسده intuu kari karo oo jasadkiisa yabda'u bihimaa labadii gacmood wuxuu ka bilaabayaa calaa ra'si madaxa ka soo bilow wa wejhi wejiga ku soo xiji wamaa aqbala iyo wixii ka hor yimaada ama ka hor yimaada oo min jasadihi jasadkiisa ah. yafcalu dalika 3 maraatin 3 mar ayuu sidaa samaynaa. xirsi uma baahnid, masaaji inaad marsato uma baahnid, wax kalood u baahan tahay male. intaa haddaad samaysa ilaah waa ku xifdina waana ku ilaalina. wax walba oo dhiba ayuu ilaahay kaa ilaalina. allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum laa ta'khuduhu sinatun walaa noom ayaad akhrinaysaa ilaa aakhirka aayatulkursi. waxaa noogu soo dambaysay qofka inuu qul huwalle berbilfalaq iyo berbinaas uu akhriyo, jasadkiisana uu marsado iyo aayatulkursi. wuxuu kaloo akhrinayaa aamana arasuulu, rasuulku waa aaminay oo waa rumeeyey bimaa unzila ilayhi wixii xaggiisa loo soo dejiyey oo min rabbihi rabbigiis xaggiisa looga soo dejiyey ayuu rumeeyey. waalmu'minuuna mu'miniintiina kullun aamana billaahi mid kastoo ka mida ilaahay ayuu aaminay iyo wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa iyo wa kutubihi iyo wa rusulihi ayagoo dhahaya laa nufariqu ma kala qaadqaadayna bayna axadin axad baynkiisa oo min rusulihi rusushiisa ka mida. waqaaluu waxay dhaheen mu'miniintii samicnaa wa atacnaa maqalnay ateecnayna gufraanaka noo dembi dhaaf rabbanaa rabbiyo wa ilayka almasiir. masiirka iyo marjica iyo laabashada xaggaagay ahaatee ilaahayow noo dembi dhaaf. laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha naf ma kelifa ilaahay ilaa tabarteeda maahane iyo waxay awoodi karta lahaa waxay leedahay maa shaygii wanaag ah oo kasaba ay kasbata ayaa lagu jaasinaa. wa calayha waxaa korkeeda ahaaday oo laga goynaa maktasabad waxay kasbatay oo dembi ah. rabbana rabbigeeniyow laa tu'aakhidnaa hanoo qabanin in nasiinaa haddaan hilmaanno aw akhta'na ama aan gafno waayahay buu dhahay ilaahay. rabbanaa rabbiyo walaa taxmil hanagu xambaarin calaynaa korkeena isran culays kamaa sidii xamaltahu aad ugu xambaartay oo kale cala aladiina kuwii korkooda min qablinaa annaga naga horeeyey waayahay buu dhahay ilaahay. rabbanaa rabbiyo walaa tuxamilnaa hanagu xambaarin maa shay laa taaqata lanaa bihi aan tabar iyo awood u lahayn bihi maagaa ee wacfu canna iska kaya cafi waqfir lanaa noo dembi dhaaf warxamna noona naxariisa anta mawlaana mawlaheenna iyo gargaarkeenna iyo tiirkeenna ayaa tahee fansurna allow nooga hiili oo nooga danaani cala alqawmi alkaafiriina qoomka kaafiriintaa dushoodana nooga gargaar. aayadahan waxay ku soo degeen aayadda ka horaysa suuratulbaqara. labadan aayad oo ah lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi wain tubduu maa fii anfusikum aw tukhfuuhu yuxaasibkum bihi allah
aayadaha markay soo degeen ayaa waxaa dhacday inay saxaabadu nebiga u yimideen. waxay dhaheen rasuulkii allah waxaa nala ku mashaqeeyey soon iyo salaad iyo cibaado aan qaban karno, laakiin maanta waxaa la soo dejiyey aayad aan lagu dhaqmi karin. wain tubduu maa fii anfusikum aw tukhfuuhu yuxaasibkum bihi illah. qalbiga waxa soo gala haddii la sameeyo iyo haddaan la samaynin, haddii la muujiyo kulli waa laydin qabsanaa buu dhahay ilaahay. saxaabadu waxay dhaheen aayaddaa naga qabsa rasuulkii allah ma ku dhaqmi karno. maca daalika ayuu yidhi nebiga ma waxaad rabtaan inaad dhahdaan sidii ay reer bani israa'iil dhaheen, waa ahlu kitaabeynkii hore yuhuud iyo nasaara, samicnaa wa casaynaa. sidaa ha dhihina ee bal quuluu samicnaa wa atacnaa gufraanaka rabbanaa wa ilayka almasiir. sidaa dhaha. markaasaa aamana rasuul ay soo degtay. markii mu'miniinta la ammaanay ayaa aayaddii hore la nasakhay oo ah wixii qalbiga ku jira hadduu soo baxo iyo haddaan soo bixin waa laydin qabsanaa. ka gadaal waxaa lagu nasakhay laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha. naf la kalifayo mala ilaa awooddeeda maahane, lahaa maa kasabad wa calayha maktasabad. wixii xumaana ay shaqaysataan laga goynaa, wixii wanaaga ay qabsatana waa lagu abaalmarinaa. qalbiga wixii ku waswaasa dadka waa loo cafiye. marka rabbiyow ha noo qabanin haddaan hilmaanno ama aan gefno. waad soomantaa, raashina cunta waa laguu dhaafay, khata ayaa wax kaaga dhacay si lama filaana waa laguu cafiyey. ilaahow ha nagu xambaarin culays sidii dadkii hore aad ugu xambaartay oo kale. meel aan masaajid ahayn ma ku tukan karin, biyo waxaan ahayn ma ku tahaaro qaadan karin. meel kastoo joogto waa ku tukan kartaa haddaad safar tahay. haddaad biyo weyse ciidaad ku weys qaadanaysaa. dadka hore hadday dembi galaan oo dembi dhaaf ay rabaan inay weydiistaan naftooday goy jireen, laakiin ummaddan sidaan ma astakfirullah leeyin waa loo cafina iyo wixii markaa la mid ah. najaasada meeshay gaarta waa la goyn jira, dadkan waa iska dhaqaayaan. rabbanaa walaa taxmil calayna isran kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina. rabbanaa walaa tuxamilnaa maa laa taaqata lana bihi. waxaanan xamili karin ilaahu ha nagu xambaarine. wacfu cannaa nacafi waqfir lanaa noo dembi dhaaf, warxamnaa noo naxariiso, anta mawlaana. adaa mawlaheena ahee fansurnaa noogana gargaar cala alqawmi alkaafiriina. qofku markuu seexanayo wuxuu kaloo dhahayaa biismika rabbii wadactu janbii. magacaagaan rabbiyow dhinacayga dhulka ku dhigaa, wa bika arfacahu. adiga magacaaga ayaan ku soo kor qaadayaa. fa in amsakta haddaad qabatood iga celisa nafsii nafsadayda oosaan u hurda aysan ii soo noqon oo sidaa ku dhinto, farxamhaa ii naxariisa. wa in arsaltahaa haddaad ii soo dirtana faxfadhaa. ilaahow ii xifdi bimaa taxfadu bihi, saad ugu xifdisa oo kale cibaadaka asaalixiina. addoommadaada fiican markaa seexanaysa sidaa dheh. magacaaga dhulka markaa dhigta rabbiyow magacaagaan ku dhiga, asagaana ku soo kor qaada. haddaad nafsadayda qabato, ileen dad badanasay u hurdeen ilaa hadda ku maqan. fa in amsakta nafsii haddaad naftayda celisoodba ii soo dirin, farxamha ii naxariiso. naxariistaaday baahi u qabtaa. wa in arsaltahaa haddaad ii soo dirtana faxfadhaa. ilaahow ii xifdi oo ii ilaali. ileen adduunka haddaad u soo dirto fitnaa badan, meel walba xumaan iyo shayaadiinaa taagane, wax xifdin kara male ilaa adiga maahane. bimaa taxfadu bihi cibaadaka asaalixiin. saasaad dhahaysaa. waxaad kaloo dhahaysaa markaad seexanaysa, allaahuma inaka khalaqta nafsii. ilaahayow adiga ayaa naftayda abuuray. wa anta tawafaahaa adaa dilaayo oofsanaya. laka mamaatuhaa geerideedaa kuu sugnaatay. wa maxyaaha nolosheeda. in axyaytahaa haddaad noolayso faxfadhaa ii xifde. wa in amadtahaa haddaad dishana faqfir lahaa ii dembi dhaaf. allaahuma inii as'aluka alcaafiya. ilaahu cafin ayaan ku weydiistay. waxaad kaloo dhahaysaa, allaahuma inii cadaabaka. ilaahow cadaabkaaga iga kori. yowma tabcahu cibaadaka maalintaad addoommadaada soo bixinayso. sidaana markaa waa dhahaysaa, allaahuma inii cadaabaka yowma tubcahu cibaadaka. waxaad kaloo dhahaysaa biismika allaahuma amuutu wa axyaa. magacaagaan ilaahu ku dhimanaa kuna noolaana. dhammaan inaad barataan lagaaga baahan yahay. qasab maa dhammaan inaad wada akhriso. qayba ka mida haddaad akhriso way kaa kaafinaysaa. biismika allaahuma amuutu wa axyaa. waxaad kaloo dhahaysaa subxaana allah 33 walxamdu lilah 33 wallaahu akbar 34. boqolay isku noqonaysaa. 33 mar subxaana allaahi dheh. 33 mar alxamdu lilaahi dheh waa 66. wallaahu akbar 33 dheh waa 99. macnaha waxaad dhahaysaa
34 34 mar boqol bay ku noqonaysaa. xadiidkan wuxuu ku yimid baa la yidhi gabadha la yidhaahdo Faadima binti rasuulillaah ayaa shaqada guriga ku dhibtootay. shiidkay ku shiidaysaa sida gabdhaha maanta jooga ma aha, mashiin iyo waxyaabo kale wax u sameeya, korontada dhulka u xaaqda, dharka u dhaqa, raashinka u karisa. kuwaa sidaa ma ahayn. waxay aadaysaa bannaanka, qoryahay keenaysaa, shiidkay gacanteeda ku shiidaysaa, badarkay tumaysaa ilaa gacmaheedii ay barareen. faadima cali bni abi aalib ayaa qaba. rasuulkay maqashay in qafaal badan loo keenay iyo naagag laga soo qabtay gaalada. maca daalika way soo baxday, guriga nebigay timid, waa aabbaheed. waa weysay, caaishay aragto eedadeed ah. waxay tidhi haddii uu yimaado aabbahay u sheeg, waxaan u baahanahay hal qaadim oo iiga shaqeeya guriga. way iska soo baxday, rasuulkaa yimid, caaisha waa u sheegtay fariintii. intaa ka gadaal nebiga wuu soo baxay, gurigii faadimo ayuu yimid. faadimo iyo cali oo jiifa ayuu yidhi calaa rislikum, sidiina ahaada. dhexdooda ayuu fadhiistay, lugihiisa ayuu ku fidiyey. faadimo waxay tidhi ilaa nebiga cagihiisa qabowgooda aan ka dareemay xabadkayga. intaa ka gadaal ayuu yidhi nebiga waa isoo gaartay fariintaada, ee ma kuu sheegaa khaadim wax kaaga khayr badan? markaad seexanaysiin subxaana allaahi dhaha 33 mar, walxamdu lilaahi dhaha 33 mar, wallaahu akbar dheh 34 mar. qaadim iyo waxa adduunka saaran kaasaa idinkaga khayr badane. sidaada isaga dhibtow faadime, aakhiraad wanaag iyo khayr helaysaa. ninkaagana ixtiraam oo wanaaji, wax allaala wuxuu u baahan yahay u sameey, khayr adduun iyo mid aakhiraad ku gaaraysaa. saasuu kula dardaarmay. cali wuxuu ahaa haddii safar uu ku jiro iyo hadduu gurigiisa joogo kama tegi jirin arrintan. waxaad kaloo dhahaysaa allahuma rabba asamaawaati 7 wa rabba alardi wa rabba alcarshi alcadiim. allah samaawaadka 7 rabbi u ahow, arlada 7 rabbi u ahow, carshiga cadiimkee weyn rabbigoodow. rabbanaa wa rabba kulli shayin, rabbigeena iyo shay kasta allah rabbiga u ahow. faaliqa alxabbi waannawa, allaha kala dilaaciya xabadda iyo nawaha. xabadda waxaa loola jeedaa beeralayda markay dhulka ku ridaan xubuubtii xabadda badarka ah, ilaahayaa kala dilaaciya oo geed weyn ka soo bixiya subxaana wa tacaala. faaliqu alxabbi waannawa waa laftimireedka. marka la abuuro dhulka lagu rido ilaahayaa soo dhaliya, allahaas dilaaciya xabadda iyo laftimireedkow. wa munzila altawraati waalinjiili, tawraad iyo injiil allihii soo dejiyey, walfurqaani, kitaabkan furqaanka waa qur'aankii. acuudu bika waxaan kaa magan galay min shari kulli shayin, shay kastaa sharteeda. ilaan shartu aad bay u dhib badan tahay. anta adiga aakhidu binaasiyatihi, foodiisa haayee. allahuma ilaahayow anta alwalu, alla jiri jiray ayaa tahay, falaysa qablaka shay, wax hortaada ahaaday ma jirin. wa anta alaakhiru, alla jiri doona ayaa tahoo, falaysa bacdaka shayun, wax kaa dambayn doona ma jiro. kullu shayin haalikun ilaa wajha, wax walba waa baaba'ayan ilaa ilaahay maahane. wa anta alaahiru, alla daahira ayaa tahay oo sarreeya, falaysa fawqaka shayun, korkaaga wax ahaaday ma jiro. daahir waxaad ku fasiri kartaa alla muuqda ayaa tahay. muuqashada asaga lama arko, balse waxaa la arkaa waxyaabaha asaga uu khalqo tusinay jiritaankiisa. wa anta albaatin, alla baatina ayaa tahay oo qarsoon oo aragti aan lagu arkayn. laa tudrikuhu alabsaaru wahuwa yudriku alabsaar wahuwa latiifu alkhabiir. lama arka asagaa wax arkaa. falaysa duunaka shayun, sokadaada wax ma ahaanin. aqdi cana dayna, daynta naga gud oo waqninaa min alfaqri, faqiirtanimadana naga deeq ilaahayow. waxaad kaloo dhahaysaa alxamdu lilaahi aladii aطcamanaa, ilaahay baa mahad iskale na quudiye. wasaqaana, na waraabiye. wakafaana, na kaafiyey. waawaana, na soo dumay. fa kam meeqaa badan oo jirta oo miman laa kaafiya lahu, wax kaafiya aan haysan, walaa mu'wiya iyo wax markaa soo duma. ilaahay ayaa na soo dumoo, na quudiyo, na waraabiyo, na kaafiyey, oo ma'wadka iyo guriga aan degannahay na siiyey. meeqaan haysanin wax kaafiya, meeqaan haysan wax soo duma. waxaad kaloo dhahaysaa allaahumma ilaahayow caalima alghaybi waashahaadati, haybka iyo waxyaabaha muuqda allaha cilmigiisa lahow. faatira asamaawaati waalardi, samaawaadkii allada kan abuurayow. rabba kulli shayin, shay kasta rabbigooda iyo wamaliikahu, kii hantayow. ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ilaa anta, adi ma ahee alla kale inuusan jirin. acuudu bika, waxaan kaa magangelayaa min shari nafsii, nafteyda sharteeda. wa min shari shaytaani, shaytaanka shartiisii. wa shirkihi, shirkigiisa. wa an aqtarifa calaa nafsii suu'an, inuu nafteyda ku ikhtiraafo ama uu ku kasbo xumaan. aw ajurahu ilaa muslimin,
ama muslim xaggiisa uu ii jiida yaqra'u qofku wuxuu akhrinayaa alif laam mim tanziil waa suuratu as-sajdi wa tabaaraka alladhi biyadihi almulku waa marka uu seexanayo hadduu yaqaan hadduusan aqaan kutubka waa ka akhrisan karaa haddii labadaba uu samayn karin ducooyinku iska akhrinaa keliya allahuma aslamtu nafsi ilaahu naftayda ayaan kuu dhiibay ayuu leeyahay oon u sallimay ilayka xaggaaga وفوضت أمري أمركيغا وحان أتيري إليك حقاغا إله وهردويا وحان كلا أغاهي ملها واكاسا أمركيغا أذيغا مامل حاسدين أياجر صاحرين أياجر ضببضا أياجر أني أمجيذي ربو أدا أجيذي إيغا فوض السماء وفوضت أمري وأنبنتغي أمركيغا إليك حقاغا ووجهت وحان أسوجهي وجهيغا إليك حقاغا والجأت وحان صاري أون كعسكي ظهري أمركيغا إليك حقاغا رغبة ورهبة cabsi iyo rajaba ilayka xaggaagay ahaatay ilaahayow naartaadana waa ka cabsanaynaa jannadaada waa rajaynaynaa cadaabkaagaan ka cabsanaynaa naxariistaada rajaynaynaa ciilkaagaan ka cabsanaynaa raxmadaada ayaan rajaynaynaa laa malja'a walaa manja minka makaanu magangal iyo meel lagaaga dhuunto adiga xaggaaga ma jira ilaa ilayka xaggaaga maahane aamantu bikitaabika kitaabkaagaan aaminay alladii anzalta aad soo dejisay iyo wa binabiyika alladii arsalta nabigii aad soo dirtay adducaau haddana duco waaye idaa taqallaba laylan qofku hadduu habeen isgediyo qofkoo dhan waxaa la rabaa xisni inuu ku dhex jiro iska dhaaf wax kale adoo hurdaaya haddaad dhinac isu gediso ilaa qofka bani aadamkaasuu u jiifo waa taqallubaa waa wareegaa waa isgediyaa waxaad dhahaysaa laa ilaaha ila allahu alwaaxid alqahaar rabu الsamaawaati waalardi wamaa baynahuma alcasiizu alghafaar samaawaadka ilaahay maahay alla kale ma jiro alla keligiis ah waaye waalwaaxidu keligiisa alqahaar oo addoommadiisa ka sarreeya rabu الsamaawaati waalardi samaawaadkii arlada rabbigoodii wamaa baynahuma alcasiizu alghafaar allaha casiiskaa waaye alghafaar ee dembi dhaafka badan ducaau lfazaci qofku markuu ka soo argagaxo fi nawmi hurdada waman buliya bilwaxshati qofkii lagu bileeyo oo lagu imtixaamo waxsha wax la yidhaahdo cabsi iyo argagax iyo keli ahaashii arrimooyin waxushnimo ah qofkii markaa lagu ibtileeyo saad hurdaysaad hurdada ka soo argagaxday maxaa samaynaysaa malmal maa marsanaysaa xirsigii intaad soo baxsata ma xirihaysaa waxaad dhaysidaana loo tilmaama hurdadaad ka soo naxday wax badan ha dhihin acuudu bikalimaati illaahi taamaati dheh waxaan magangalay kelimooyinka ilaahay ee dhammaystiran min qadabihi xanaaqiisaan ka magangalay iyo wa ciqaabkiisa wa shari cibaadihi addoommadiisa shartooda wa min hamazaati shayaaiin shayaaiinta hamazaadkoodii waswaasintoodii wa an yaxduruunii inay iisoo xaadiraan ilaahu iga qaba waa laysoo weerari rabaaye sidaa keliya dheh waxaa kaloo samaynaysaa markaa malaha sidaa darteed ilmaha markay soo naxaan malmalaaba u qasanba arrimaajada korkeeda islaanta u saara sankaa loo saaraa waa mamnuuc xaalada noocaasa magangeli way noo imaan doontaa ilmaha yaryarka acuudukuma bikalimaati illaahi taamaati u dhihi jiray nebiga xasan iyo xuseen xersina ma u xiri jirin badana biyima looga keeni jirin sidaa darteed muslimiintu waa inay shirkiga iska ilaaliyaan ilaahayna dhabnimo u caabudaan acuudu bikalimaati illaahi attaamaati min qadabihi wa ciqaabihi wa shari cibaadihi wa min hamazaati shayaaiini waa yaxduruuni intaa keliya dheh haddaad hurdada ka soo argagaxdo maa yafcalu man ra'a aru'ya aw alxulm wuxuu samayn lahaa qofkii riya xun arka xulmiga waa riyada dhabdhabkaa loola jeedaa adoo lagu jiidaayo adoo god ku dhacayo adoo libaax ku cunaayo adoo bahal ku bursanaayo ayaad ku riyootay maxaad samaynaysaa yanfutu can yasaarihi alaaa sheekh hebelow maad dhahaysaa mashe cabduqaadiro iyo wixii lamida maya dhinacaaga bidixdaa afuuf 3 mar yastaciidu billaahi ilaahay ayuu ka magangelayaa min ashaytaani shaytaankii wa min shari maa ra'aa wuxuu arkay shartooda 3 maraatin acuudu billaahi min ashaytaani arajiim dheh intaasaa kaa kaafinaysa seexa kulli waa kaa tegaaya ilaahay baa magan gashay subxaanahu wa tacaala bani aadam gadaashiisa haddaad gashaaba lagu badbaadiyaa ilaahay cadiimkaa haddaad magan gasho ka waran oo gadaashiisa aad ku dhuumato laa yuxadith biha axadna yuusan u sheegin riyaxun haddaad aragto weligaa qofha u sheegin waxay ku dhibaysa male 3 mar bidixda afuuf acuudu billaahi min ashaytaani arajiim dheh qofna ha u sheegin yataxawalu wuxuu ka wareegayaa can jambihi aladii kaana calayhi jambiguu u jiifay midig haddaad u jiiftay bidix usoo seexo bidix haddaad u jiiftayna midig isku wareeji 3daa arin ama 4taa arin sameey wax kale ma kuu soo noqonayaan ilaahayna wanaag buu ku siinaa subxaanahu wa tacaala yaquumu
hadduu kari kara waa istaagayaa yusallii wuu tukanayaa in araada daalika hadduu rabo. haddaad doonto way kasii fiicantaha intaad weys qaadata 2 rakac aad tukato aad sii seexato yaa kuu soo dhowaan karaba waa ma jirto. ducaau qunuuti lwitri, witrka qunuudkiisa ducadeeda waay allahuma hdinii fii man hadayta wacaafinii fii man cafayta watawallanii fii man tawallayta. saasaa lagu ducaysanaa witriga marka la tukanaayo. witriga waa salaadaha leelka markay dhammaadaan rakacada ugu dambaysa. ducaau waa ducadii qunuuti lwitri, witriga qunuudkiisa. allahuma ilaahayow ahdinii ihanuuni oo fii man hadayta dulalkaad hanuunisa igu dhex dar, wacaafinii ilaahow caafi fii man cafayta dadkaad cafisay micigooda, watawallanii ilaahayow iweli oo imaamul fii man tawallayta dadka aad tawallisay igu dar, wabaarik lii ilaahow ii barakay fiima actayta waxaad isiisay, waqinii iga kori shara maa qadayta waxaad xukmisay sharteeda, fa inaka taqdii adigu waxbaad xukmisaa walaa yuqdaa calayka laguma xukmiye. laa yus'alu camaa yafcal wahum yus'aluun. wuxuu sameeyey ilaahay lama weydiiye subxaana wa tacaala, laakiin ayagaa la su'aalaa. ilaahay asagaa wax xukmiya. wallahu yaqdii bilxaq waaladiina yadcuuna min duuni laa yaqduuna bishay. ilahay waxbuu xukmiyaa, kuwa ka soo haray waxay xukmin karaan ma laha. inahu sha'niya laa yadillu ma dullayn kara man waalayta, laa yadillu man waalayta qofkaad adiga xiriiriso wax dullayn kara ma laha. walaa yacizu wax sharafi u yeeli kara ma laha oo cizayn kara man caadayta qofkaad nacdood goyso. tabaarakta khayrkaagaa batay rabbanaa rabbiya watacaalayta waadna kor noqotee. waxaad kaloo qunuudka dhahaysaa allahuma innii acuudu biridaaka min saqatika, ilaahayo waxaan raadi ahaashadaada ka magan galay ciqaabkaaga, wa bimucaafaatika min cuquubatika cafintaadan cuquubadaada ka magan galay, wa acuudu bika minka adiga ayaan adleen kaa magan galay, cadaabkaaga adleen kaa magan galay. laa uxsii ma koobi kari hanaa'an amaan calayka korkaaga inaan amaano. haddaan idhaahda caawo dhan ilaahan amaana maba awoodi kariba. saan u dhashay laan ka dhintaan ilaahay amaana haddaan dho mala amaani karo. anta kama asnayta calaa nafsika, intaasaa iga kaafisee adiga intaad naftaada ku ammaantaad tahay. waxaad kaloo dhahaysaa allahuma iyaaka nacbudu walaka nusallii wanasjudu wailayka nascaa wanaxfidu. allahuma ilaahayo iyaaka nacbudu keligaa aan ku caabudaynaa, walaka nusallii wanasjudu adaan kuu tukanaynaa kuuna sujuudaynaa, wailayka nascaa xaggaagaan u dadaalaynaa oo u soo soconaynaa, wanaxfidu xaggaagaan wanaagga u badsanaynaa, narju waxaan rajaynaynaa raxmataka naxariistaada, wanakhshaa cadaabaka cadaabkaagana waa ka cabsanaynaa, waayo ina cadaabaka cadaabkaaga bilkaafiriina mulxaqun kaafiriinta kii haleelaya waaya. allahuma inaa nastaciinuka alla waa ku gargaar weydiisanaynaa, wanastakfiruka waa ku dembi dhaaf weydiisanaynaa, wanufnii calayka alkhayra khayr ayaan dushaada kugu ammaanaynaa, walaa nakfuruka ma kugu kufrinayno, wanu'minu bika waa ku aaminaynaa, wanaqdacu laka waa kuu khushuucaynaa, wanakhlacu waxaan ka siibanaynaa oon nacaynaa oon ka fuqaynaa oon ag fadhiisanaynin man yakfuruka qofka kugu kufriya. adikru caqiba asalaami min alwitri, wuxuu qofku dhihi lahaa markuu ka salaamo noqsado. adikru caqiba asalaami min alwitri, witrka markuu ka salaamo noqsado subxaanaka almeliku alquduus 3 mar dheh. midda saddexaad waad la jahraysaa biha wayamuddu biha sawtahu, midda saddexaad codkiisu kor u qaadayaa, yaquul asagoo dhahaya subxaana maliki alquduusi rabbi almalaa'ikati waaruux. taasuu markaa ku daraya ducaau alhami waalxusuni, tiraayadii iyo murugtii aa naga badatay. markastoon murugoona sixiroolaha u tagnaa iyo midka kutubka fiiriya. markasta oon murugoona ilaahayaan ka duruqna subxaana wa tacaala. haddii la murugoodo dhibaato fara badan bay dadku sameeyaan, laakiin ducaana la baraa maanta hamiga iyo xusniga iyo murugta naga baabi'isa. allahuma inii cabduka dheh, ibnu cabdika ibnu amatika naasiyatii biyadika maadin fiya xukmuk. saasaad ku ducaysanaysaa allahuma ilaahayow inii anigu cabduka addoonkaagaan ahay, daciifaan ahay, waa kuu baahanahay, muruga i haysa, dhiba i saaran ilaahayow. ibnu cabdika addoonkaaga canugiisaan ahay, ibnu amatika addoontaada canugeedaan ahay ilaahayo, waa hooyo aabe. naasiyatii foodayda biyadika gacantaaday ku jirtaa, maadin waxaan ku socdaa fiya aniga igu socda xukmuka xukunkaaga, cadlun fiya qadaa'uka xukunkaaga korkeyga aad ku xukmisa cadaalad waaye. as'aluka waxaan kugu su'aalanaa bikulli ismin
magac kastoo huwa laka adig kuu sugnaaday oo samayta bihi nafsaka naftaada aad ku magacaawday aw anzaltahu ama aad ku soo dejisay fii kitaabika kitaabkaaga aw callamtahu ama aad bartay axadan axad oo min khalqika khalqigaaga ah aw ista'farta bihi ama aad ku guurisay fii cilmi lghaybi cilmu lghaybka cindaka agtaada ahaadaan kugu su'aalanaa an tajcala qur'aanka inaad ka dhigto rabiica qalbigayga rabiiciisa. rabiica waxaa inta badan loo isticmaalaa guga roobka marka uu da'o barwaaqada badan ee timaada. qalbigayga qur'aanka uga dhig. wa nuura sadri laabteeda nuurkeeda ka dhig. wa jalaa'a xusni murugteeda faydideeda ka dhig. iyo wadahaaba hami murugteeda bixitaankeeda. xusniga iyo hamiga waa isku macno dhow yihiin. hami waa murug, xusnigana waa tiraayada daran ayaa markaa loola jeedaa. waxaad kaloo dhahaysaa allahuma inii acuudu bika ilaah waxaan kaa magan galay min alhami murugta waalxasani tiraayada waalcajzi cajziga waalkasali wahsiga waalbukli bakhiiltinimada waaljubni fulaynimada wadalaci dayni daynta culayskeedii waghalabati arijaali ragga guulaysashadooda. rijaashu inay iga qaalib noqdaan ayaan kaa magan galay. waad u jeedaa ilaahay ayaa la magangalaa. ilaahayow hamiga ayaan kaa magan galay iyo xasanka. saan soo tilmaanay hami xasan waa isku macno dhow yihiin. cajzi iyo kaslina saasoo kale. waa in diinka laga caajiso, waa in qofka uu caajizo, waa in danihiisa adduunka inuu ka caajizo, shaqadiisa inuu ka caajizo, waxyaabaha uu rabay danta uu qabsanayo inuu ka caajizo. kulli ilaahay ka magan gal. waxaad arkaysaa ninku dhahay shaqada waaba aadi la-ahayba sariirta ma ka degi kariba. waxaa loo samaynaa waxyaabo kale, xirsiga loo samaynaa, kan saas samee, kan boorsada geli, kan afka geli, waxyaaba been ah waaye kulli. dheh ducada nebiga allahuma inii acuudu bika min alhamni waalxasani waalcajzi waalkasali adaa beri hore ka ordaaye waalbukli waaljubni bakhiilnimo iyo jubninimo. bakhiilnimadu waa in diinta laga bakhiilo, waa in xoolaha laga bakhiilo, cilmiga alla ku bari inaad ka baqiisho. wax walboo khayr ah oo dadka aad u qaban karta inaad ka baqiisho ma fiicna. waljubni fulaynimo inaad ka cabsato shaydaanka, inaad ka cabsato cadowga, inaad jubniy waxyaaba noocaasa la timaado waa arrin dhib badan. wadalaci dayn daynta dalaceeda waaye iyo waghalabati rijaali rijaasha qaalib noqoshadooda. ducaau lkarbi kurbada ducadeedii waaye. kurbaaba naga bixi weysay. afar culimo waxaa markaasuu leeyahay walwaltira iyo akhri. walwaltira wax la dhaho maba jiraba. walwaltira ilaahay waaye subxaanahu wa tacaala. sidaa darteed kurba markay kaa badato dheh laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliim, laa ilaaha ila allah rabu alcarshi alcadiim, laa ilaaha ila allah rabu asamaawaati wa rabu alardi wa rabu alcarshi alkariim. waa kuu dhammaatay kurbadii. waxaad kaloo ku daraysaa allahuma raxmataka arju ilaahu naxariistaadaan rajaynayaa falaa takilnii ilaa nafsi nafteyda ha ii tala saaran oo ha ii wakiilan darfata caynin waslix lii sha'nii kullah sha'nigayga oo dhan ilaahu ii wanaaji laa ilaaha ilaa anta. sidaa keliya dheh. kurbii adi waa isdayseen macnaha, ama wax kale ha tilmaamin. kurbadu arrinteeda waa sida kurbada saasaa looga baxaa laa ilaaha ila allahu alla aan ahayn ma jiro. asaa kurbada keenay, asaana qaada. alcadiimu alxaliim waa alla cadiim ohoo weyn haddana dulqaad badan subxaanahu wa tacaala. laa ilaaha ila allahu rabu alcarshi alcadiim carshiga cadiimka rabbigeeda waaye. laa ilaaha ila allah rabu samaawaati samaawaadka rabbigoodii wa rabu lardi arlada rabbigeeda waaye wa rabu alcarshi alkariim. allahuma raxmataka arjuu ilaahu naxariistaadaan rajaynayaa falaa takilnii ilaa nafsii nafteyda ha ii tala saareen darfata cayni waaslix lii sha'nii kullah xaaladahaygoo dhan ii wanaaji laa ilaaha ilaa anta. waxaad kaloo dhahaysaa laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin. kurbaa kaa badatay haddaad sidaa dhahda way dhammaatay. nebi yuunus calayhi salaam ka waran qoomkiisaa loo diray wacdiyaa la yidhi way ka xanaajiyeen. wuu ka ordaa la dhahay, waa ka xanaaqayba sida ilaah tilmaamay wadannuuni id dahaba muqaadiban fadanna an lan naqdira calayhi. waa dhuuntay qoomkii ay ka xanaajiyeen asagoo carab buuxo ayuu ka orday sida ilaah tilmaamay. wa yuunusa yuunus xusbuu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala id abaqa ila alfulki almashxuun doon la buuxiyuu ku dhuuntay. markii doontii uu baxay uu iska baxay sida ilaahay tilmaamay fadanna an lan naqdira calayhi wuxuu u maleeyey inaanan kari karin. doontii ayaa dhaqdhaqaaqdo soco weysay, waa la qoryo tuuray. fasaahama fakaana min almudxadiin qori tuurkuu ku soo baxay. war yuunus nin fiican waaye dhaafaa la dhahay. mar labaadaa la qori tuuray asaa ku soo baxay. war nin fiican waaye dhaafaa la dhahay. mar saddexaad asaa ku soo baxay. logaay gacmay ka qabteen baddaa lagu tuuray. fasaahama fakaana min almudxadiin faltaqamahu alxuut buu dhahay ilaahay malaayaa dhunjiyey. faltaqamahu alxuut wahuwa muliim
asagoo mulima falowla annahu kana min almusabbixiin wuu tasbiixsaday subxaanaka inii kuntu min adaalimiin buu yidhi maahan hadduusan dhihi lahayn buu yidhi ilaahay lalabitha fii batnihi ilaa yowmi yubcatuuna caloosha malaa'igu ku jiri lahaa ilaa maalinta qiyaamo sidaa darteed bannaankaa loo soo bixiyey fanabadnaahu bilcaraa wa saqiim asagoo jiran oo bajaqbajaqaa bannaanka loo soo bixiyey wa ambatnaa calayhi shajaratan min yaqtiin geed bocoreeda loo soo bixiyey suu hoos uga helo iyo biyo markaa fiican ayaa loo soo bixiye buu dhahay ilaahay wa ambatnaa calayhi shajaratan min yaqtiin intaa ka gadaal wa arsalnaahu ilaa 100,000 aw yaziiduun waxaa loo diray ilaa 100,000 waa 100,000 oo dad ah aw yaziiduun fa aamanuu famatacnaahum ilaa xiin dhammaantood way rumeeyeen waana loo raaxeeyey ilaa waqti markii nebi yuunus sidaasuu ahaa wadannuuni id dahaba muqaadiban fadanna an lan naqdira calayh fanaadaa fi dulumaat mugdiyaaluu ka dhex qayliyey mugdiyaalka maxaa waa mugdiga caloosha habeennimay ahayd badda mugdigeeda oo ka dhex qayliyey fanaadaa fi dulumaat muxuu yidhi an laa ilaaha ilaa anta ilaahu adi ma ahe alla kale ma jiro subxaanaka adigaa nasahan oon ceeb lahayn inii kuntu min aldaalimiin anigna daalimiintaan ka mid ahay malaa'igtu waxay dhaheen waxaan maqlaynaa nin codkiisana aan nagu cusbayn meel dheer nin ka soo hadlaaya nu egoo tasbiixsanaya addoonkayga yuunis waayabuu dhahay ilaa subxaana wa tacaala laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin faistajabnaa lahu waa ka ajiibnay kurbadii iyo murugtii baan ka faydnay buu dhahay ilaahay iyo kurbadii markaa haysay wakadalika nunji lmu'miniin mu'miniintana saasaan u badbaadinaa maxaan laa ilaaha ilaa anta dhahnaa hadday kurbana timaado sheekh hebelaaba noo joogay maanta sheekh uweysaa noo joog sheekh cabdulqaadiraa noo jooga intaasay xaaladda isku bedeshay fiiri nebi yuunus calayhi salaam ilaa yar wuxuu gaaray uu yidhi waxaan ku tasbiixsaday meel qof bani aadam uusan ku tasbiixsanin waa runtiis waa caloosha malaa'iga waxaad kaloo dhahaysaa allahu rabbi laa ushriku bihi shay-an shirkigaana loo diidaa intaa waxaa laga hortagaa inaad dhahdo awoowow balaaya igu dhacday saan waayo xaaladeeda ilaahay waa rabbigay waxna ma u shariik yeelay ducaau liqaa'i alcaduwi cadowga la kulankiisa ducadeedii waay haddii cadow lala kulmaayo iyo wadi sultaani midka suldaanka u saaxiibka beri baa maxkamadda lagaa wacay waxaa lagu yidhi dacwaa lagu qabaa ee imow albaabka markaad dhagta dheh allahuma ina najcaluka fii nuxuurihim wanacuudu bika min shuruurihim waa kaa jeesanayaan iikoo dhanba waxaad kaloo dhahaysaa allahuma anta cabdii wa anta nasiirii bika axuula wa bika asuula wa bika uqaatil sidaana markaa waad dhahaysaa waxaad kaloo dhahaysaa xasbuna allahu wa nicma alwakiil ilaahay baaba nagu filan sheikh meeluu ka soo gala maba lahanba wax ku tafiiriya meel uga bannaan iyo boos ma laha xasbuna allah waaba dhammaatayba ilaahayaaba igu filan subxaana wa tacaala wakiilna asagaa markaa u nicmo badan allahuma ilaahayo inaa najcaluka waxaan kaa yeelaynaa fii nuxuurihim dhuuntooda wanacuudu bika min shuruurihim shartoodana waa kaa magangelaynaa allahuma ilaahayo anta cadudii garabkaygaa tahay wa anta nasiirii kaalmeeyahayga ayaa tahay bika axuulu adaan kugu wareegayaa magacaaga wa bika asuulu magacaagaan ku gaaraya wa bika uqaatil waa marka la dagaalamayo bika axuul dhinac baad ka wareegta dhinac kalaad ka rabtaa inaad ka dagaalamto wa bika asuulu waa gaaraysaa cadowgii wa bika uqaatil magacaagaan ku dagaalamaa xasbuna allah ilaahay baa kaafigaygaa wa nicma alwakiil ducaau man khaafa qofkii ka cabsada wuxuu ku ducaysan lahaa dulma sultaani sultaanka dulmigiisa wabillahi tawfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclam